بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، وبعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها الأحبة، وحين درسي هورك ورناي لبدا آيات القرآن في سورة الحشر كجري: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. waxaynu soo tilmaamnay inuu takhtiidkaasi uu ku salaysnaado alla ka cabsi iyo al-i'timaad ala nafsi la ala al-aakhar, inaad naftaada ku kalsoonaato, ku tiirsanaato, iyo awlawiyada in la siiyo qadanka aakhira ah intaan adduunka teeda laga shaqaynin, waayo adduunku wuxuu ku islaaxayaa aakhira islaaxinteeda. waxaynu maanta in sha allahu tacaala wakhtigoo aad u kooban ku dari doonnaa bal tan takhtiidkeedu muxuu noqon karaa. waxaynu isweydiin karnaa maada nantadiru hada, berri maxaynu filaynaa qof ahaan, qoys ahaan iyo ummad ahaanba berridan dhowe adduunka ah. ummad ahaan dadku wuu tiro badanayaa. waxaa laga yaabaa dadka Soomaaliyeed hadda birth rate-keedu siduu ku socdo 10kii sanaba inay labalaabmi doonaan haddaanay ka badanin. su-aasha isweydiinta leh waxay tahay 10 sano kadib xaggee buu mustaqbalkeennu joogaya? hadday tahay majaalka waxbarasho oo maanta dunida cilmigu huwa asilaax waliqtisaad, cilmigu maanta dunida isagaa hubna ah, dhaqaalana ah. xagaynu aqoon ka gaari doonaa? dhaqaalaheennu xagguu gaari doonaa? iqtisaadkuna waa casab alxayaa, waa halbowlaha noloshan cusub. xaggay gaari doontaa caafimaadkeennu? xagguu gaari doonaa dadka iimaankiisa iyo akhlaaqdiisa iyo dhaqankiisa iyo diintiisu? ma mustaqbalka miyaynu iska sugnaa uun oo waynu eegnaa siduu u dhacayo oo nantadir almajhuul, waxaynan garanayn baynu sugnaa? mise qof ahaan iyo qoys ahaan iyo qaran ahaanba qorshaynu leenahay? ummaddeenna waxaa caana sanad daadad bayna qaada oo waxaynu ururinaa kharashka dadkii daadku qaaday. sanadka ku xigana abaar bayna qaada oo waxaynu ururinaa kharashkii dadka abaartu ku dhacday. ilaa iyo weligeen misaasaynu ku jiraynaa? waa saxiix noloshu waa imtixaan, yowm casal wa yowm basal, laakiin wax khutaa ama takhtiita ma leenahay oo aynu kaga gudubno azimaadkan taagan. ugu horrayn ayuha alaxiba, waxaynu isku waafaqsannahay alakhdu bilasbaab inuu waajib sharciyaye. inaad sugin uuna odhan qadarkaynu eegaynaa wuxuu noqde inay waajib kugu tahay inaad samayso asbaabta sharciga wixii aad awoodo. masaajidkii nabiga calayhi salaatu wasalaam baa nin yimi, dabeetana wuxuu ku yidhi ilaahay rasuulkiisiiyow ursulu naaqatii waa tawakkal, neefkayga geela ama sii daaya oo ilaahay ma u tala saartaa? nabigu ku yidhi icqilha wa tawakkal, waar neefkaaga intaad dabarto ilaahay u tala saaro. xadiidka imaam nasaa'i iyo tirmidi baa warinaya, sheekh albaanina saxiix ligayri buu ku sheegaya. siiradii nebiga oo dhan calayhi salaatu wasalaam baynu ka arkaynaa takhtiidkaasi. waana kii nebigu inoo tilmaamay calayhi salaatu wasalaam: laa yuldaqu lmu'minu min juxrin maratayn. qofka mu'minkaa inaan god 2 jeer laga wada qariinin. asma hadday shalay ku soo martay, berri inaad u fakarto o u qaabayso si aad uga tallaabi lahayd, ee aanay haddana berrina kugu soo noqonin. waa sax oo ummadda lama niyad jabiyo, lama quusgeliyo. oo nabigu calayhi salaatu wasalaam wakhtiyaday ugu adkayd saxaabada ayuu bishaaraadka ugu badan sheegi jiray. laakiin camal baa loo baahan yahay si aynu mustaqbalka u waajahno. in allaha laa yugayiru ma biqowmin xataa yugayiruu ma bianfusihim. mar kastoo waxaynu rabno inaynu qabanno muhiimadiisu ay weynaatana
خطط كاللو دقي يسيد اللو فكريا وين بلادان إلهي سبحانه وتعالى قرأ عيبي كو إيديي إنني ديار قروا أسمينين وحي لقربي ولو أرادوا الخروج لا عدوا له عدة إلهي لما المنافقين ربي وحلي هدي أي نبطه إني دون أيين إني جهاد بحان لا عدوا له عدة إلهي وهي ديار قروب لهاي وحبي ديار صلى إذن وحا إلهي نوت المامي سبحانه وتعالى وحا أمد أي ربط إني قبط إني وديار قروب وإلا إني عيبي سنتهي سأوجد بقى الله سبحانه وتعالى قرآن كوحا كنت المامية وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم الديارية وحي أودان يعني جهاتك الديار صدا وحي أود نوع كستبها النقطة إذنكم ترهبون به عدو الله وعدوكم إذنكم ردعين إياه عبسي قالين أيانا إذنكم سور ديران إذنكم ويدين عدو قاهي ديار قرو قابا علماء ذو إذا وحي كان سانسا كو إنا دوغاتو تمرتادو انت إلاكتي معلومات كاسينة هشو لبا عدو قاقا إنا معلومة كايسي إتال كيسو انتو لاقيي إنا قران كرتو عدو قاقو مستقبل كهالكو وصعدو يا ودي سواحكو صبيري كرا سيادو قصيقا شامتو وإنو النغضاء واحد ديار سنسا للردع وحدي رجالين كراينا لقوق سود دقدقين سيدا وقيد أيها الحبة آية القرآن وحيد هذا وحي وضع المامسة الخطة العسكرية والهدف الاستراتيجي للجهاد إلى هنا القرآن كوحلي وقول اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون أيها الأحبة وقت غير درادد وان ظل مريا ومسائل كان ربه إنا وحكت المامو كتاب القرآن كقصص بدن بقصة أروري كي هراء هي النبي دي أنبياء دي هراء هي بقردي هراء قال هي مسلم با وحاسو تاريخ وحلينا وشيغيين وحكو قادنه أو وحكو لسنه قصص كقرآن كان من أحسن القصص وحكم إذا قصدي نبي الله يوسف عليه السلام نبي يوسف قصديس وقصة عجيبة هدي أدبهان الله إيجا يسيدا يقول لسنتهي وهيرارك وقصر رأيه أدب وحلاق وراقصة هدي لإيجا وحي كور رميسا وقصة حكم تربى ذلك كتشره لكن إنه قصة دوران ومصع عنه waxaynu tilmaamaynaa un qayb kaliya oo tilmaamaysa tafkiir rashiida iyo xusnu takhtiit iyo salaamatu lidaara qayb tilmaamaysa si fiican oo loo fakaro wax loo qorsheeyo plan fiican oo la dego iyo maamul wanaagsan oo lagu wado إلهي وحكوت المام يا سورة سين يوسف أي مادين قلدي قالت يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون يوسف قال لي واحد نوغا ورنتا نوفت وطا نوفا سرتا الريو كصاب سيسن بقركي رياضي تضبصع او نحسن او عنية تضبصع او ويده يتضبصع بوله او عقارا يتضبصع بوله او انجغن كورن باليري نبي يوسف حبسه كجرا iyagaanu xabsiga ugu jira dulmi ay dulmiyeen laakiin إن الله يحب المحسنين مو أورنين وروا يدينكي الظلمة يوردو إضافة مو أورنين رياضة فسر كذا يسوق قرنا يجي هلاك سمانة وكادي نمك وقالونه همدانه لكن وحتى شابيين بن آدم كا ماشى دجنرر مصارى
iyo dadka agagaarkoodaba gaal iyo muslimkoodaba inuu badbaadin karo. riyada uma fasirin oo keliya, waxay culammadu yidhahdaan waxa ku fillayd inuu yidhaahdo 7 sannadood oo barwaaqa iyo 7 abaara baa idin soo maraya, laakiin sidaa ma yeelin baa la leeyahay. wuxuu u tilmaamay khudadii lagaga bixi lahaa mushkiladaasi. way riyadu kamay warramin, muuqaalkeedu wuxuu sheegayaa 7 abaara, 7 barwaaqa ay ka dambayso, 7 abaara uu ka dambeeyo sanad barwaaqa ah. muuqaalkeedu saasuu sheegaya. laakiin nebi yuusuf wuxuu nimankan ugu deeqoo dheeraada sidii wax loo qaabayn lahaa. khudadu maxay tay? wuxuu u sheegay kow intaajga in la badiyo. تزرعون 7 سنين دأبا. تزرعون وثيقة خبر لو قدن لي أمر 7 سنوات وحبير أبو لي 7 سنوات دأبا وحال يعني سي مستمر ومتتالي سي حديدة وحبيرة 7 سنوات وحسوسار كي إنه ماشي أوصل رئيسها قاعد أبو المامية. الأصل في الشريعة إلهي وحينا فريدا دول كان نعمره. هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. إلهي دول كو إذن كأبوري وحانو إذن كضلبي إنا محي إنا عمرتان دول كان. الفائض الإنتاجي إن ديراد لصوص عرانا ووحكينا إن قرشة مستقبل لدقي كروه. marka waxa koowaad uu tilmaamay waa inuu intaajku kor noqdo. shayga labaad uu tilmaamay fama hasadtum fadharuhu fi sumbuli wa darura takhzin alhubub baydadan in la kaydiyo wixii soo go'a. waliba culumta mucaasirkii waxay sheegayaan qaababka kaydka ugu fiican inay ka mid tahay in shaygu isagoo sumbuladiisa ku jira lagu kaydiyo. haddii la rabo waqti dheer inuu sii jiro, suuskuna geli maayo, fasaadina maayo bay yidhaaheen, waqti dheerna wuu jiri karaa. waliba tani waxay tilmaamaysaa bay yidhaahdeen nooca waxa la beeraya inuu tilmaamayo shayga sanaabisha ka baxa, yacni inuu xubuub noqdo. marka wuxuu sheegay waxay beeranayaan sanawaadka barwaaqada inay wax beeraan. waxa uu tilmaamaya waxay beerayaan inuu midho noqdo. waxa uu tilmaamayaa sida midhaha loo idikhaarinayo. waxay dhahdaan maanta 30% wax ku dhadhow ayaa kaydintiiyo rarka ku luma bay yidhaahdaan intaajka dadku ay soo saaraan. marka wuxuu u sheegayaa idikhaarkoodu sidii uu u hagaagi lahaa, fasaadka uga baxsan lahaa. ثالث الأمر خطة يوسف waxay tilmaamaysaa qodobkeeda saddexaad ترشيد الاستهلاك وعدم الإسراف. وحال عنايو إن سقمن لا عنا وحدتك كفلا وآن إسراف لصمين بل أنت وجبدا إن ليدخارين كرو أما الله كيدين كرو. في الشريعة وحنا نقولنا نلش عادي إن أن إسراف بنانين حول الصيد كوينان بنانين. لكن markay duruufaadka saxbiga soo socdaanna way ka sii adagtay markaasi mas'alada tani. illa qalila mimma taakulun bu tilmaamaya. israafuna sharciga wax walba kuma banaanaba. Abdullah ibn Umar ibn al-As ba wuxuu sheegaya xadiis Imam Ahmad iyo Ibn Majah warinayaan, Sheekh al-Albani xasan uu ku tilmaamayo wa xadiis uu tarajucaadka sameeyay, laakiin akhiran inuu xasan uu ku tagay. waxa uu sheegayaa سعد ويسيسنا يصامر النبي عليه الصلاة والسلام دبتنا وحيد ما هذا الصرف يا سعد وما حيبيها نطقبيسا ضادريسا سعد في الوضوء صرف إله الرسول كسيوم ويسده أي إسراف كتره قال نعم وإن كنت على نهر جار بالنبي عليه الصلاة والسلام ها يو كتره حتى هداد وبالدرير يدرع صعطه. waayo waxa la rabaa qofka muslimka ah inuu tarbiyada qaato. tarbiyadu waa suluuk lagu celceliyo si ay caado kuugu noqoto. haddaad markaad biyo badan haysato qubto oo saydhsaydho
macnaheedu waxa weeyaan hadhowna lagama aaminaha adigoo aan kugu filan inaad si isticmaasho shareecada markaa israafku sidiisaba ma bannaana dunida maanta dadka jooga nuduray ka cabanayaan waxay leeyihiin dadkii baa batay cunnada dunidu kuma filla waxani kuma filla ma aha ku filaanshiyo waa ku filan tahaye waa suu'u tawsiici walistihlaak bay yidhaahdaan waa qaabka dadka wax loogu qaybiyey oo aan cadaalad ku salaysnayn iyo istihlaaga matalan waxay yidhaahdaan halkan nin ee maraykanku 90 qof in ka badan oo afrika abu dabka isticmaalaa 90 qof oo afrika jooga dabka isticmaalaan electricity-ga u baahan yihiin ayuu nin maraykan kaliya isticmaala marka waxay leeyihiin waa israaf iyo tabdiir iyo suu'u tawsiic ma aha inaan dhulka waxa dul saaran ku filan dhulka waxa dul saaran ay dadka ku filayeen ilaahay baa sheego leh wabaraka fiha waqaddara fiha aqwataha walaqad makkannakum fil ardi waja'alna lakum fiha ma'ayish qalilan ma tashkurun wama min dabbatin fil ardi illa 'ala allahi rizquha waxa dhulka saaran dadka uu ka badan yahay kullama waxay dhibi ka timaadamana ilaahay aqoon cusub buu dadka u furaa dabeetana dee shalay hektarka intii dade uu quudin jiray maanta intuu quudiyaa bale maanta waxaa la marayaa in bilaa ciid iyadaan ciidiba jirin in wax la beeri karo iyadaan ciid iyo dhulba lagu ridin hawadaa sare iyo biyo in lagu beeri karo beertu ay bixi karto ayaa maanta technology-ga dunidu maraya marka siyaasadan ah dadka in la gaajaysiyo waa siyaasa caalamiya waa jawic kalbak yatabicak eygaaga gaajaysii bay yidhaahdaan carabtu ha ku dabagalee dunida rag baa u qorsheeya in dadka la gaajaysiiyo busaaradda ayaa gaajadaana waxaa ka yimaada inxiraafaad tiro badan oo ijtimaaciya dadka oo aan qaraarkoodu gacantooda gelin man laa yamlik quuta laa yamlik qaraara ijraamkoo tiro bata ammaanada tuugada khiyaanada waxaasoo dhan ammaano la-aanta baan ujeedaa tuugada khiyaanada waxaasoo bulshada ku tiro bata nabiyullaahi yuusuf qorshahan uu degay yani waxay yidhaahdaan khudadku 7 shay bay ku salaysayeen qoladan علوم الإدارة صيت المامان قصتي سدمانتو دو الله قد حركة كرابيلي لكن وقت غير وحبق الله وركو ذو عن مايو وحين لنا تحقيق الأمن الغذائي سي الله لا أمن غذائي قاسي لبا الشيء ومبا ماشان كم موضوع كو الدأب في زراعة الأرض dhulka beeristiisa in la joogteeyo si intaajka ugu tirada badan leh loo soo saaro 7 sano barwaaqada ah noocyada masruuca waxa la beerayaa inuu xubuub noqdo sumbulka leh waxa ka dambeeyana waa inaan israaf dhicin ama si qaldan wax loo tawsiicin ee bini aadamka si siman wax loo siiyo waana ka nusuusta quraanka ee suuradu tilmaamayaan ximlu baciirin cid kasta la siin jiray وإلما يعقوب وكله هدان ويل ونوكرده وحنو سكريه إن إنه أور إرادة سوق هذا لكن ما أنت دتك الدنيا النولي وحيلين سعر ساقده يدون كفر أطور دشة الله يريه دشة وحيابا لقو يرين أنا وحكم ده حقوق ده جندر كل شيء جيو نكمل ده والله عاد ضد قال يبا وحط الماما قولا كهذا شيء رجع يدو مركا وقولون قرار كوداسي مركاسي وحولي وحن ربعون أي شيكتان وضن كان لحدن كان السنة صوص صعدة وكندا لحدن كسنة صوص صعدة عدة وقت لقى شيء يدكتو خطدي إن هذين الرعنو نتيجة دوينا وحلنا لين لحدن سنة صوص صعدة كديم ندت كانوا مرن دونا هذا الشوجا مركا وحي شيكتان بولي يوم قدر خطدة وضك ينسينا رجعنا الرجع قدر الدمر كان الدمر قدر لكن وحشاكتان 60 سنة مركز من رافنو كان ده عدة لصينا ينا قرشينا كم مقتلوا لي كمو ديجين نبي يوسف قرشها تحديد النسل سيع النضو ضدك وقف الله تو حبها دالنا أفريت طبعا كسنة صعدة سيع النضو يدون كف الله توحط المامي سيدي اللوجا بحلها هي خطة تنايود عليها أيها الأحبة
waxay yidhaahdaan waxa labaad ama qisadan waxa kaloo ka muuqda oo ay yidhaahdaan culamaa الاستراتيجيات ama idaarana waa muhim waa takhطiidka iyo tanfiidku inay wada socdaan siiba cidda wax khatidaysa wax ka midii inay maamulayaan qaabka khidadaasi u fulayso ولذلك buu dalbaday inuu رأس المخططين isagoo ah inuu رأس المنفذين noqdo يجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم buu tilmaamaya أيها الأحبة قصة إلهي قرآن كونوغو تلمامي وحي تلمامي سا ومدو إني قرشي ستو مستقبل كده حقيقو صعطة الزمات كدوني دا وكدعان روب لاني وادعدا أباري وادعدا برواقة وادعدا لكن هذا لقا قبا هي سيداد انت بقو نولان كاري لهيد ومدادو أي وچيري كاري لهيد دوني دا إنو ما انت جوغنانا دوني ليسونا حريستا ماها tusaalayaal baa malaa dadka ku habboon in la siiyo tusaalayaal kooban baan tilmaamaya waxaa laga yaabaa dadka badh inay yidhaahdaan dee dunidu maanta kala tagtayo wakhti laysa soo gaadho lama joogo waxba kama jiraan waddannaha wada taqaaniin singapore maxay ahayd wakhtigaynu inagu xornimada qaadannay taiwan maxay ahayd wakhtigaynu xornimada qaadannay malaysia maxay ahayd wakhtigaynu xornimada qaadannay turkigu muxuu ahaa wadannadaasoo dhammi maanta waxaa laga yaabaa in la leeyahay dhaqaalaha dunida ama teknolojiga dunida ama horumarka dunida meel saray kaga jiraan maxay u dhacda waxaan leenahay waxaa ka mid ah waxyaabaha keena inay dadku guulaystaan bay yidhaahdaan oo khudadka istaraatiijiga ee la dego waxaa ka mid a kow zamanka inay dadku ka faa'iideeyaan oo la ilaaliyo cadama hadri alwaqt hadafku inuu xadidan yahay meesha loo socdo in la garanayo wasaa'isha lagu gaadhaya in la tafsiiliyo la garto hadafka wasiilada kuu geynaysa mawaariddaad haysato dhammaantood inaad isku daydo inaad ka faa'iidaysato yacni tharawaadka waxa ummaddu ay leedahay ama dhul ha kor saaraado ama hoos ha ku jiro ama bad ha ku jiro ama dadka ha ku jiriyo aqoontiisa waxaa kaloo ka mida bay yidhaahdaan athiqatu binafs dadku inuu kalsooni naftiisa ku qabo oo ay tahay tusaalaan bixinaya maanta waddan yaroo taiwan la yidhaahdaa maqlaysaan oo labada dowladood ee dunida maanta ugu dhaqaalaha badan isku hayaan china iyo maraykan baa isku haya taiwan maxaa la isugu hayaa maxaa laga rabaa maxaa maraykanku uu leeyahay aan ilaaliyo taiwan lixdanaadkii horta taiwan waddanka la yidhaahdaa sidiisaba waa markii thawradu ay ka dhacday china qoladii boqortooyadee la riday ayaa carartay waddanka intii kale mawtistan iyo kooxihiisiiba qabsaday qoladanaa soo baxsatay oo jasiiradan yar degtay marka waa maamulkii waddanka jayna boqortooyadii ka talin jirtay iyo wixii raacay baa soo baxsaday oo halkan degay jayna waddan shuuciya buu ahaa waa loo diiday united nationka taiwan kaa yar bay ku dareen united nationka 20 sano ayay kursiga Chinese-ka iyadu ku fadhiday waxaanay dhaqaalaheedu ahaa lixdanaadkii waxa lagu tilmaamaa dhaqaalaheedu $170 buu qofku yani marka la eego GDP-ga waddanka $170 buu qofkiiba ku soo hagaagay yani dhul beeralaya oo aan waxba ka jirin bay ahayd oo daciif ah maraykan baa wuxuu go'aansaday waddankan tirada yar le 220 milyan ah iyo dadkan bilyanka iyo badhka bini'aadama aynaanu isku doorsanin warshadihiisa iyo dhaqaalahood iyo waxaan inay suuq u baahan yihiin inuu China la heshiiyo isagu maslaxadiisu ka hadlaya Taiwan buu ka soo tuuray United Nations iyo China galiyay 1970 71 something like that ayaa China la siiyay kursigii United Nations Taiwan dibadda loo soo tuuray Taiwan markaa waxay noqotay waddan yar waan dunida cid ictiraafsanayn laba saddex dawladood oo hoos kala dhaqmo mooyaane waan United Nations ka tirsanayn
وأن أرد يدولي قال كرينين وأن معترف باهين شينه وينابا الاعتراف تايوان دتك دي مركا way fakareen waxay yiraahdeen seebaynu loolanka dunida uga qayb gali kareenaa inoo aan dawlad muctaraf ah ahayn cid la fadhina waxay yiraahdeen adduunku wuxuu ka horumaro waa technology balan xagga technology-ga u kacno waliba aanu kacna bay yiraahdeen xagga Silicon Family chibiska daqiiqa ah الرقائق الدقيقة 1973 أي waxay fureen macad la yiraahdo ITRI oo wixii Silicon Valley-ga lagu hayay bal inay baran karaan 3 sano kadib 1976 bay arday aad u badan waxay u direen sidoo Ashraf sheegayo waxay u direen wadanka Mareykanka si ay aqoonta chipka daqiiqa ku saabsan inay soo bartaan Taiwan inkii madaxda ka ahaa waxay ku qanceen war culimada Taiwanese dunida ku nool ee dabadda jira aan soo celino wadanka oo de wadan yaro beeraleeyeen oo lacag badan ma haysanay say kuwaas u soo noqonayaan waxay u baahan yihiin baynu siinayna imtiyaazaad halka wixii aad ku haysateen wax ka badan ayaan wadankaaga kugu siinayna wadankaaga u shaqeey baa leeyid marka khubaro badan oo ay leeyihiin dunida ku firiirsanayd ayay aqbaleen ay dib soo qaadaan waxay haddana yiraahdeen intan oo quraan ugu ma filla nin baa jira Taiwanese oo khabiir ninka hala doono waxa jira nin la yiraahdo Morris Chang oo khubarada caalamka ugu waaweyn waqtiga joogtay kamid aha isagoo markaa dhowriyo konton jira ay yiraahdeen ninka waa in la doono ninka kan 25 sanadood buu wuxuu shaqaynayay kambaniga caanka ee Texas Instruments la yiraahdo Mareykan oo technology-ga daqiiqa kambaniyadii waqtiga hogaaminayay ninka hal raadiye bay yiraahdeen ninkaas 1958 ilaa 1983 buu kambaniga u shaqaynayay wax la muxaawaleeyaba waxa lagu qanciyay in wadanka la keeno 1985 bay Morris Chang dib u keeneen Morris Chang wuxuu bilaabay muhandisiintii wixii inuu tababaro wuxuu bilaabay inuu shirkad sameeyo 1987 shirkad la yiraahdo TSMC waa Taiwan Semiconductor Manufacturing Company waa shirkadda Taiwan u qaabilsan inay semiconductorska soo saarto shirkadda tan wuxuu ku bilaabay raasamaal aad u yar 220 milyan oo dollar buu ku bilaabay 220 milyan oo dollar dawladdu ma haysato dawlad daciifa 120 idinku keena buu yiri 120 kalena shirkaddan Philips la yiraahdo Hollandiiska iyo dad iyo waxbuu ka qaaday intaas isku jaabeeyay 220 milyan buu wuxuu ku sameeyay shirkadaasi ku aasaasay shirkadu waa shirkad bilow ah waxaanay rabtaa chip industry inay noqoto chipku horta soo ma taqaanin waa maskaxda kanaynu ka hadlaynaa waa maskaxdan yar ee ka shaqaysay waxaan jiraba maanta waxaan electronics ka jira maskaxda yar ka shaqaysaysa ee processorska iyo wixii la nooca weeyaan kaasoo rabaa inuu soo saaro chipka in la soo saara laba farsamo ay leedahay farsamo waxa la yiraahdaa tasmiim designing waa waxaanay ku tilmaamaan logical gates wuxuu ka sameeyay logical gates مسائل ملا dadka inta badan aanay fahmay way iskaga tagaynaa waa in bahalka la design gareeyo design-ku marka waa cilmi sidiisa u taagan markay chipka joogto ka labaadna wax weeyaan wixii aad design gareysay in warshadii samayn lahayd soo saari lahayd la sameeyo sideetanaadkii lixda shirkadood ee wax sameeya dunida ugu waaweyn waxa lahaa Mareykan iyo Japan saddex shirkadood oo Mareykan ah waa Texas Instruments-ka IBM iyo Intel dhanka kalena saddex shirkadood oo waaweyn oo leeyahay Japan baa yaalay waa NEC NEC iyo Toshiba iyo Fujitsu lixda shirkadood baa kuwii ugu waaweynaa markaa ka mid ahaa wax soo saara laakiin dunida konton shirkadood baa jira
وتصميم كسمية ورشد ماله لكن تصميم كبهل كاير السدو شقين يهور مرنتيسا كنتم شركة ضادو كشقية باجرة شركات كي واويناي مريكان waxay ku xidheen marka cidii rabta in loo sameeyo hadda waa ku sameeynayna laakiin wixii ka dambeeya annaguna waa samaysan karnaa kaagi tasmiimkaagi marka dadkii meel kale samaysamahayaan waxay ku qasbanaadeen in maraykan shirkadkiisa loo tago nin waliba design cusub oo aan dunida oo lin intuu keeno uu u dhiibo oo loo sameeyo marka isaga u sameeyaan hadhownayana iska samaystaan suuqa ayana geliyaan Morris Chang wuxuu bilaabay bahladii qadiimka ahaa horta inay sameeyaan si ay ugu tababartaan oo kuwa hore ee baatenkoodu iska baabaay inay wadaan wuxuu kaloo bilaabay shirkadka jadiidka ah inuu yiraahdo shirkad walo noo keenta tasmiimkaaga waa ku haynayna adigun baa iska leh annaguna ma sameynayno waxaad adigu dalbato baan ku sameynayna marka waxay yiraahdeen laba sifo ay yeesheen kafaa iyo amaana bay isku heleen bay yiraahdaan inay dad farsamadan garayeen yihiin oo wixii sameyn karaya iyo dad amaana leh oo wixii nimankan u haynaya taasi waxay keentay shirkadkii dunida ee qoladaasi sanduleysatay inay xaggan u soo weecdaan ninkan wuxuudina u haynaya waxna u sameynaya dhankiisa inay la bilaabaan bal markay xoolaysatay horumar weyn bay waxa ku sameeyeen shirkadoodii ilaa iyo zabaa'intooda ay ka mid noqdeen xataa kuwii sameynayay Intel iyo maxaa la yiraahdaa Texas Instrument iyo shirkad waaweyn Motorola iyo kuwaasay chibiskooda soo saareen markuu warshada sameeyay 13 sanadood kadib chipka dunida boqolkiiba 60 Taiwan ba soo saari jirtay shirkadda 2008 markii la gaaray waa 12 sanadood kadib 51% bay soo saarayeen chipka dunida lagu sameeyo oo dhan taasi waxay keensatay shirkad waaweyn oo wax sameyn jiray markii dambe inay iska badayeen wax sameynta oo ay designka ku soo hadhaan dabeetana iyaga maadaama ay amaane leeyihiin idaadan baalkan warshadahan kulfadoodu tiro badan tahay halka warsho 12 bilyan baa lagu dhisaa markan dambe halka warsho inta dhisi lahayd waxa kan qolada tan ma siisaan ha sabeeyaan shirkadka waaweyn iska daayay waxa kamid ah AMD oo kale 2009 kii bay joojisay tasmiim bay ku hadhay nimankii way wadeen waxay gaarsiiyeen raqaa'iqda noocan dunida oo lin ama dunida kale sameyn karin ay sameeyaan 5 nanometer that means Intel iyo wali 7 nano ma sameeyaan si ay u fahamtaan nanometer kan aynu sheegayna waa 1 bilyan mitirka marka loo qaybiyo 1 bilyan midkii shana kamida ay processorskooda noocyadkaasi ku sameynayaan si kale haddaan u tilmaamo markastoo nanometerku uu hoos u sii dhaco bahalka speedkiisa wuu kordhayaa powerku cunayaana wuu yaraanayaa waana dee waxa la rabo in shaygiina uu soo yaraado power consumptionkiina dabkii uu kaa cunayna inuu yaraado horta si ay u fahamtaan waxaan dunida nimanka faanayo dham ay haystaan waxan bay ku shaqeeyaan gantaalka cirka loo dirayo satellite-yada samada jooga diyaaradaha iyo hubkan waaweyn waxa laaliyo wax gawaadhidan maanta dunida joogto oo dhan waxaan mobile la sito oo dhan waxoo dhami bahalkan yar bay ku shaqeeyaan marka waxa weeyaan dunida maanta waxa electronic joogo oo dhami processor bay u baahan yihiin lagama maarmo processorkaasina markasta uu sii horu maraba dee cajabtiisa badanaysa مثلا maraykanku maanta F35 buu sameeyaa daywarada F35 processors kay u baahan tahay nimankan baa sameeya hadduu wuxuu ku qasbay khatar baa lagu jiraayay inay warshad ka dhisaan Texas 12 bilyan ku kacaysa si kale markaan u tilmaamo waxay sameeyeen hadda 160,000 oo mitir square meel abay warshad cusub ka sameynayaan oo ay 5 nanometerkii hoos uga sii dhacayaan 3 nanometer inay hadda soo saaraan 3 nanometer markay soo saaraan macnaheedu wax weeyaan kii 5 nanometerka ahaa boqolkiiba 70 buu ka dheeraynayaa 70% buu faster
dandaad wan yahay raqaa'iqda maanta mutaaxa ah intalbaa weli 7 la rafanaysa iyana intay 5 ka soo guuraan bay 3 u guurayaan yay wax u samaysaa TSMC waxay wax u samaysaa Apple shirkaddan iPhone-ka leh waxay wax u samaysaa Nvidia shirkaddan inta badan kombiyuutarada ku aragtaan qalabka ku jira inay leedahay waxay wax u samaysaa Qualcomm shirkaddan processorada samaysata waxay wax u samaysaa Marvell waxay wax u samaysaa Broadcom waxay wax u samaysaa Exlinux yani waxay wax u samaysaa shirkadka waaweyn ee dunida la sheego shirkadda qudhe gaarka isugu filan ee aan iyaga ku xidhnayn waa Samsung ee iyaguna leh waxooda gaarka ah taa macnaheedu waxay sheegaysaa China 28 nano buu marayaa kuwanina 3 bay marayaan 3 iyo 28 baa la kala joogaa that means wax isu dhow ma aha shirkadkan waaweyn ee dunida jooga waxay yidhaahdaan maraykanku hadduu is yidhaahdo kuwan maanta dib u samayso ugu yaraan 10 sannadood bay ku qaadanaysaa bay yidhaahdaan China markay aragtay inaanay gaadhaynin waxay isku dayday inay xaddo muhaddisiintii ay lahaayeen Taiwan kumaan bay soo saartay boqol bay ka xadeen maxay siinayaan 3 laab mushaharkii Taiwan ay bixin jirtaa China siinaysa laakiin de halka warsho 30,000 oo injineer buu baahan yahay hal warsho noocan inaad soo saartaa 3,000 oo injineer ay u baahan tahay bay yiraahdaan markaan warkaas soo duuduubo nimankani caqli bay invest gareeyeen dalkoodiina waxa u dhigan khuto inay beeraleyda qura ka baxaan oo ay dunida hogaamin karaan waxay yiraahdaan marka la yimaado xagga militariga Taiwan laguma duuli kara bay yiraahdeen waayo haddii lagu duulo dunida dib u dhacaysa bal qiyaas adigu wadan yar oo la leeyahay haddii lagu duulo dunida oo dhan baa dib u dhacaysa la Maraykan baan cirka wax badan u diraynin wala imika markay azmada tani dhacday مثلا gawadhida dunidu nus bay hoos u dhacday in ku dhadhow bay leeyihiin wax waliba way qaali garoobeen maxaa loo leeyahay karooni wax waliba way qaali garoobeen chainkii ku saabsisnaa bahalka kan ayaa dhibi ku jirta chainkii isku xidhnaayee processorskii dunida gaadhi lahaa baa yaraaday marka waxay yidhaahdaan waa silaaxu radci li Taiwan bay u noqotay bay yidhaahdeen silaaxu radci hubkii ay naftooda ku ilaalinayeen waa jibkaa yar warhoy China u dib baad u dhacaysaa haddaad weerarto Maraykan u dib baad u dhacaysaa haddaad weerarto dunida ay haddii weerarna lagu qaado dib baad u dhacaysaan waayo warshadoodan cidina ka maarmin warshadooda yar ay meesha ku haystaan baan cid ka maarmin dunida qolaba wax yar bay goosatay warshadani qalabka ay wax ku samaysayeen hal shirkad oo qura dunida leh MSL shirkad Hollandiisa ayana leh waxay tani soo saarto qalabka wax lagu sameeyo taasoo qura samaysa maxaan uga dan leeyahay masaladan TSMC iyo Taiwan hadaynu sanaa ka warramo muxaadaraad bay u baahan tahay laakiin waxaan uga dan leenahay beeralay bay ka yimaadeen laakiin qiyaadahan leh oo khutalo meel u muuqata heshay qiyaadadaas istiraatiijiyada ay degtay wixii ay u baahnaydna way ku dhaqaaqday oo ah inay macaahideeda horumariso aqoonyahan dabadda u dirato waxay aqoonyahan lahayd ee dunida ku noolaana inay dib u soo xarayn karto hal nin oo ay soo hesho raggeedii ka midina isbeddelka intan leeg buu sameeyey saawgeed ayuha alxiba waxlaana umamku haddaan cidi mustaqbalkooda ka fakerin وفكرة قرآن ما هي فكرة اهتمام بيو باهنتي بيدا إن مدنان لصيو اهتمام قرآن ما هي اهتمام كتخطيط بيو باهني باللي إن قرشة وشرو قرشة قرآن ما هي قرشة وحو باهني بيلين تنفيذ عملين ويماده عمل كوحو باهني بيلين تقييم إن دبلو قيمة يلا أقام حاك قلدان محادبة تقييم كوحو باهني بيلين وحو صار تصحيح إن لها قاتيو انت انت المامي waxay yiraahdaan waa khutuwaadka istiraatiijiga khutadka loo maro fikrad ihtimaam khutta tanfiid amal taqyiim tasxiix
وستبسك كلا دنبيا لما ربي هذا هدي قلب بيرلي أيمان الدنيا ده عندك كويس صوت ترى هندور يلا 10 مليون وأنا هين دولة معترفة والدنيا ده كتيرتا وأنا ودن كده الرصاص الهين يمكن مثلا وحيابها يريي بيلينين الدنيا ده وهذا بروسيسور سكري وحنا يرادان وحكم ده دجال كيوكرين كصعدة ويا يوكرين الراشيا وحكم ديهين ودنا ده وجود بدن الجاسس كنادر كاهب هلادن لو سمية صارة جاسس كاسي وحلا سمية برتا وأنا ودنا ده وجود بدن برتا ورشدا برتا عليه دنيا ده بدأ يسكو حرنتي لكن ودن كاي يروحوا جاري إنه الدنيا ده ودن سنترون نقضه oo yiraahdo hadii aniga la dhibo isagaan hub haysano waxba toon hadii la dhibo dunida oo dhan ayaa dhibmaya wuxuu gaadhay inuu dadkiisii ka keeno min 170 ilaa iyo $1000 inuu income-koodu noqon karo waxa la mid ah wadana kale oo aynu ka warrami karno Singapore lixdanaadkii caynkaas ah Singapore ciida guriga lagu dhiso Malaysia looga keenaa ciida guriga lagu dhiso baladu qiyaas wadan ciid u baahan si guri u dhisto wadan kale looga rarayo waana wadanada ugu dhaqaalaha badan labay ka mid tacliim baan ku gaadhay Malaysia Turkey waa dhaahira nin baa yimi industrigooda weyn buu dib u hagaajiyay arbakaan la yiraahdo professor ah heavy mechanics ka professor ku ah wadanku dib u hagaajiyay Erdogan baa ka dambeeyay waxa aragteen baa la sameeyay waxaan uga dan leeyahay cid kasta oo nool oo bini aadama oo khudad degta oo naftooda kalsooni ku qaba naftooda iyo dadkooda kalsooni ku qaba mustaqbalkooda way wanaajin karaan ilaahayna quraanka wuxuu inoogu tilmaamay qisada nabi yuusuf waxay ka waramaysaa qisas badan oo kale quraanka ku jira laakiin tan waxaanu soo qaatay وقصة مستقبل كور رميسا تضافر يطبن سنة صو صعدة أما شن يطبن سنة صو صعدة وضن كاسدي اللوبة بعدين لها أيها الأحبة وحنكسو كوبيا اختي لي سي وقبل وحنكسو كوبيا ويقول وحويا خطط إنه وحيوبا هنتي كو الله كعبس لبا وحيوبا هنتي الاعتماد على نفس دولة بلايا نتاجري سيا ميل كلام رادين ناي وحبا كما جيران دلكاغي ددكاغي اودادي عقلكاغي خوغاغي علمكاغي ان تستعماش الاعتماد على نفس والثقة بنفس كلسوني نتسكو قبطيراد وح نقون كرتيد waxaynu u baahanay inaynu siino awlawiyada aakhiro dadkiyo ummaddu inay aakhiro badbaadaan خامس الأمر وحين لنا مستقبل كدونا خطوة باهية عملية ومضايش هديت هي تقفك وين أنا دسكم مدن قرن سنة كان هي سنة كدنبه وإلا فاشل باطل أردينا جامعاتك وحي الربانين ووراقاته وراقي وحبا مطرته إن دو حبرتها مهمة وحبرشنا والله كراه haddaad maalinta jaamacadda ka baxdo wax kharisba kuugu dambeeyo xagaad qabanaysaa shalay sidaad ahayd waa inaad isku daydaa cibaado ahaan cilmi ahaan aqoon ahaan dhaqaale ahaan dadnimo ahaan akhlaaq ahaan inaad ka kortid halkaad shalay taagnayd inaad routine life ku jirto maaha nolol routine oo aan horumar lahayn waa markaad qoftay markaad qoys tahay waxaad u baahan tahay inaad qaabayso qoyskan maxaad ka damacsantahay xagaad ku wadaa meeshaad hogaaminaysaa inay kuu muuqato khudadaad yeeli lahaydna inay kuu muuqato noloshu caraaqil ma weydo waa mashaakil kaa hor imanaya laakiin mashkilad kasta way out bay leedahay meel looga baxaa bay leedahay ummadda tan waa in cidi u fikirtaa fikrad qura maahee waa in cidi khudadka u dejisaa dadka qaadada u ahi waa inay khuda u dejiyaan خطة قرآن ما هي وينو نقضى وحلة تنفيذينيو إنكو مدي شالي هدو حقا وكحيي مدعوينا كحيقا أنا حقا كبو كحيي وحد موداينا نكوب الله مدبا انتو رساكا كلينو بربوريو
baladhaqanka Soomaalida waxa kamid ah xafiis cusub marka timaado kuraasida inaad ka jeediso xagga ay u jeeday miiska inaad rarto kii hore xagga ugu fadhiisan jiray Soomaa adigu miiskana xagga dhig kursigana xagga ka soo jeeday dhanka ka bedel halkaad wax kale ku kordhin lahay idan hadduu noqdo maamulka ummaddu midba ku ka dambeeya inuu isku dayo kii hore inuu raadkiisii masaxo yuu legacy helin yuu magac helin yuu waxan helin halkuu odhan lahayn taasi u gaadhsiiyey maxaana ku dari karaa ama kii hore ceebtiisa inuu ka warramo ka soo socdaa inuu ka fakaro kan siduu u fashilin lahaa jooga si aan u guulaysan lahayn ummadaasi meel u socon mayso idan gabagabadaydu waxay tahay ilaahay wuxuu yidhi waqul icmaluu فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة وأنا عمل سماية بالليل إلهي يا رسولك يمضوا وإذا نركض دون طوح السميسان آخرنا إلهي بأيدين كور رمي بحياة السميسان وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.